tukarraq ciidankii joogay waa guuray gooja cadduu tegey laascanooduu dul fadhiyaa wuxuu ahaa taliyihii militariga Somaliland ee aagga bari wuxuu lafdhabar u ahaa dagaalkii Somaliland ay 7 bilood ee la soo dhaafay kula jirtay dagaalamayaasha deegaanada SSC Khaatumo wuxuu ahaa nin mikrofoonka hadalka aad ugu dhow marar badanna ka hadlay diriirtii socotay korneelka maanta la qabtay Faysal Cabdi Bootaan wuxuu caan ku ahaa furimaha dagaalka haddii ilaahay raalli ka noqdo ciidanka qarankuna hawlgalladiisii dagaal way sii laban laabayaan waxay qaadi doonaan tallaabo laba ilaa waana ay ka qaadi doonaan huwanta wuxuu ahaa nin digniin bixiya marna goodiya waanaan la dagaalamaynaa dagaalkaasuna waa soconaya ciidamada qarankuna kama daali doonaan ciidamada qarankana waxaan leeyahay geesiyaal baa tihiin ha ka daalina hawshiina wata hareerahaanu idin taagannahay annagaa idin hor soconna waa ballan inaan inta nin inaga leelyahay aynu dagaalanno Faysal Cabdi Bootaan hogaaminta dagaalkii Laascaanood ayuu bartanka kaga jiray Faysal maanta ayuu u gacan galay ciidanka maamulka SSC Khaatumo aniga hadda madaxweyne ku-xigeenka ay geysaan iyo hadda madaxweynaha ay geysaan iyo hadda garan jaamac garan Ismaaciil ay geysaan iyo hadda qawi dhageysaan waa odayaashaydi Soomaa qaabkii loo soo qabtay wili waa la isku khilaafsan yahay balse waxa la hubaa in jabkii maanta Somaliland ku dhacay ay qayb ka ahayd qabashada Korneyl Faysal Cabdi Bootaan isagoo dhaawac ah rafaad iyo diif kalena ay ka muuqato ayaa la soo bandhigay Faysal waye xaaladana maanta Faysal Cabdi Bootaan عاد iska dhig Faysal cidina waxba kuma yeeli qabashada Faysal waxa kale ay muujinaysaa muuqaalna ka bixinaysaa wixii maanta ku dhacay ciidankii Somaliland ee talaskii gooja cadde laga barakiciyay hadba sida loola dhaqmo korneelkan iyo sida loo xanaaneeyo waxay tusaale ka bixin doontaa dhaqanka iyo milgaha raggii qabtay dhinaca Somalilandna qabashada Faysal Cabdi Bootaan waxay ku noqonaysaa dhabar jab muddo dheer la hadal hayn doono adigu maxaad u maraysaa waxa sidaa maxaad dareemaysaa adigu sidaa aan ku horeysiyo dadka la joogta waa dadka